dadweynaha sharafta leh haweeneyada mudaniyo marooyin madaxda kale sharafta leh ee ka socda hay-adaha qaranka hay-adaha internationalka sida United Nationska iyo hay-adaha badan ee ka caawiyey Soomaaliya ama hay-adda komishanka qaranka inay xafladahan dalka oo dhan ka qabato oo ay ka mid tahay hormood ka tahay hay-adda bisha dhammaan gobollada qaranka ee halka riwaayadda muhiimka ay noo soo bandhigay madaxda hay-adda komishanka qaranka dhammaan marti sharafta assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu runtii sharaf bay tahay inaan halkan maanta idinku furo maalinta caalamiga ah ee maalinta AIDS-ka adduunka laga xuso waa 1 December ee sanad walba waxaana loogu talagalay si loo wacyigeliyo dadka ahmiyadda ay leedahay caafimaadku iyo bulshadu inay iska ogaato cudurkaasi mushkiladda uu ku leeyahay bulshada adduunka oo dhan xanuunkan oo la sheegay imika dalka wadamada Afrika inuu aada ugu badayay marka loo eego meelaha kale soddon sano laftigeeda runtii wuxuu ahaa wadamada uu ku yeelyahay laakiin imika waxaad moodaa wadamada ugu badan in lagu tilmaamo waxa aynu halkan maanta dadka sidii aad riwaayadda ku arkaysay ka doonayna laga wacyigeliyo in ay ogaadaan oo ay cilmi u yeeshaan xanuunkani mushkiladda uu leeyahay iyo siyaabaha looga hortago dhibtiisa iyo siyaabaha la isaga ilaaliya labadaba waxaa halkan inala jooga madax fara badan iyo dhakhaatiir ka shaqaysa hay-adaha oo cilmi dheer iyo shaqaalaha hay-adda Soomaaliya oo iyagu shaqaalo badan oo khibrad loo anigana iga khibrad badan runtii oo aan jecelahay inay si faahfaahsan wax badan ay halkan idinka sheegi doonaan waxaan aada ugu mahadnaqayaa dhammaan yarta ka soo qayb gashay si ay u ogaadaan dhibaatooyinka halkaa ay ka arki doonaan marka dadka looga warramo waxay sii gaadhsiin doonaan dadkooda kale bulshada waxayna siin doontaa digtoonaan iyo aqoon inay u yeeshaan iska ilaalintiisa maanta waa maalinta AIDS-ka adduunka oo laga xusayo meelo badan oo caalamka ka mid gaar ahaan Soomaaliland dadka ugu badan laga xusayo ujeedada ugu weyn taariikhda laga sheegayay waxaa weeyaan in ismeysiyo lagu wacyigeliyo dhammaan dadka waxaa loo iyadoo meesha ku jirta in la taageero dadka xanuunka la nool ayagoo asiibay xanuunka la jecel in aynu taageerno oo aynu u muujino taageero iyo taakulay ayaynu meesha ku jirta maantii haddaan laba gabdhood ka idhaahdo doorka ururada bulshada ay ka qaataan wacyigelinta HIV maantii waa door aada ballaaran waa door aan qabo inay wax badan ka talaan dhinaca bulshada waa door wacyigelineed ama ka horta dhinaca siyaasadaha ururada bulshada rayidka ahi waxay ka soo shaqeeyeen oo ay muddooyinka laba sano ku dhawaada ka shaqeynayeen sidii ay sharciga xakamaynta HIV/AIDS artiga waxa loo yidhaahdo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen iyagoo u maraya komishanka AIDS-ka qaranka sharcigiina waa kaa maanta muxuu ahaa diyaarka ah xeerka HIV maanta waa diyaar halka waxaa inoo fadhiya baarlamaankii gudoomiyihii baarlamaanka waa arrimaha bulshada waanu doonayna inaan maanta gooha komishanka AIDS ku wareejiyo waa xeerka kusoo dhawaada maalinta caalamiga ah ee xisbida waxa weeye maanta waxaa loo qabtay xafladda adduunka oo dhan oo laga maraya waddan walba iyo meel walba maanta oo laga xusaya waxaana loo xusaya si loo ogaado wixii la soo maray wixii dhibaato la arkay wixii horumar la sameeyey iyo waxa
إلهي تعدي ويبقى سيدو فاكرين تقولوا ويرا dhammaan waa mahadsantihiin inaa hawlaheedii aynu wada shaqaynaynay aynu isu aragnay inaynu wada shaqaynayno iyadoo oo dhammaanteenba aynu hal mabda' leenahay mabda'aas loo yahay inaynu ka hor tagno xanuunka iska sidaynu u daweyn lahayn iyo sidaynu u yarayn lahayn ku talagal buu leeyahay sanad walba ku talagalkiisu wuxuu leeyahay halkudheg Soomaaliyeed iyo halkudheg UNAIDS adduunku uu ku dhawaaqo UNAIDS adduunku wuxuu ku dhawaaqay inuu yidhaahdo zero tolerance oo ah inaan wax alla haba yaraatee la takooli kara aanay jirin in haba yaraatee aanay jirin wax laga helo ilmo yaro cusub waxaa kaloo aan idin sheegi doonaa in aanu aad iyo aad muhiimada u saaray sanadkan in la isbaaro marka isbaaro ayaa dabeedna dawooyinkaaga iyo professionkaaga aad qaadanaysa halka waxay inoo yaalaan hay'adii dhanayde waxay toy departmentkayga intervention profession treatment and care oo dhan baa jooga dhakhaatiirtii baa jooga wiilgaasta ku jirtaan ee quruxda badan leeyihiin isaga eegaysaan meesheeda dhexdiisa waxay tusaysaa inay tahay keligeeda wax ka yar 10 daqiiqo inaad ku ogaato idan ibna ku ogaan maanta waa maalinta eegayska maalin walba sanadkana baaxusaa maanta waxay ku beegan maanta oo kale kowda Disembar ayay ku beegan tahay waxaynu isku baraarujinaynaa in aynu iska ilaalino jacaylka oo inta badan lagu kala qaado ilmada lagu kala qaado hay-adaha hawlaha ka shaqeeya hadalka maduu marmaraane hadalkiisa kala bulshada arrimaha bulshada oo dhan iyo arrimaha dadka dadka ka shaqeeya waxa weeye dee shaqadoodii baaba hawlaha marka waxa u sheegaa si toosa ayay u sheegaan ninka qaar baa qabsada hadallada laga yidhaha keliya waa kuwa